intii ugu horreysaan saragna waxaan dareemay yani dareen farxadeed waxaan ka yimidin suuqa baskan ka soo degay waxaan ku kulanay halka star aniga waxaan ahay laba hablood oo kale maalintaas sidii la isku baran jiray man isku barano inaan isku baran jiray isagana ina meel la socday oo iga daba yimaadeen kadibna waxa kala qornay lambarka maalmo kadib waxa bilaabmay jacayl curdina sidee halka ka bilaabmay inkastoo iska adayg iyo xaalado mararka qaar oo meel adayga gaadhay laakiin waxay ahayd mid markiiba horta igu dhalisay dareenka inkastoo aanan ku jeclaanin aragtida maxamuud booldheri oo durba jacaylku saaqay waxa uu bilaabay in Ifraax uu qoro fariimo jacayl oo uga dirayay telefoonka gacanta fariintii ugu horreysay aan u diray runtii waxay ahayd maalintii aan adigu dhowr cisho isnaqaanay fariintii ugu horreysay aan u diray message ugu qoray waxay ahayd in yani aan u gudbiyay dareenkayga jacaylkayga dhammaystiran ereyadii runaantii waan iska helo jacayl baan ahay waxaan u qoray yani waan ku jecelahay xabiibi aad baan kugu jecelahay markasta waxaan jecelahay inaan ku arko run ahaantii wadaca jabisay iyo qaar kaloo aad u badan oo adigu jacaylkaasuna marba marka dambaysan aad moodayso inay ereygeedu sii kordhayo inay sii macaananayeen iyadu sidee ayay uga falcelisay mawjadaha fariimaha ahaa ee uga imanayay gacaliyaheeda cusbaa message-ka markuu ii soo diray aniguna dareenkaygu baan u sheegay waan ku jecel markuu ii soo dirana sidoo kale waxa la kordhiyay waqtigii la wadaagi jiray muxubbada kalgacalka waxaana la isarkaa mar walba oo waqti la helo mid walbana dhankiisa ayuu hareerta hayaa waxa dhacday waan maalmihiisa isku baranay xiriirkii aad ugu soo yara kordhay marba mar ka dambaysa waan muddo waan arki jirnay inta badan telefoonada way iska adkaayeen inta badan aad looma isticmaali jirin inta badan waxaan ku balami jirnay waqtiga ama ayaamaha maalinta iblaahay soo galayso habeenka 7 saacad noocaas oo kala saacadaas aan isugu iman jirnay saacada marka soo nimaadno habeenka marka halkaas saacada isku kulno inta badan soo telefoonkii dhalinyarada mid walba ama waqtigeeda qaaraanu waqtigu ku saamaxayna kala hadasho inasan saa ugu wadnay markii dambe waxaan marba marka dambaysa dareemay inaan dad barashadoodii iyo xiriirkoodii adkaaday oo marka dambaysa marxaladii hore ee ka gudbayo xaalku aad moodayso inuu ka sii yarduwanaanayo xiisiisii badanayo yani marba marka dambaysa ay wax sii bedelayaan kadibna waan halkii baanu barashadii markay muddo xoogaysatay aan muddo aan wadnay waxa dhacday markaa inaan waqtigiina xilliba markaa time ay gaadhay muddo xoogaa ay gaadhay kadib markaa dhacday inaan ballantaydii halkeenu toddobaadkii maalin iska iman jirnay inaan kordhinay aan isugu iman jirnay toddobaadkii 2 cisho markii dambe aan haddana sii kordhinay toddobaadkii 3 cisho ilaa markay gaadhay toddobaadkii habeen dhaaf aan isugu iman jirnay markii aan habeen dhaafka isugu iman jirnay kadib marba marka dambe wax dareemi kartaa in jacaylku aanad adigu ogeyn laakiin uu wax jiraan waxa dhacday inaan markii ugu dambeysay waxaan isku iman jirnay habeen walba maxamuud oo farshaxanka sawirada ku fiicnaa waxa uu Ifraax u diraa waraaqo lagu xardhay wadnayaal isu heshanaya iyo indha ay ka burqanayso ilinta caashaqu hadii anigu waxaan aad si aadaan ugu wanaagsan xagga farshaxanka ama sawirada wadnayaasha iyo waxyaabaha sanad ugu fiicnaa ama qoraalka xagga qoraalka warqadaha marka hadii jeer anigu waxaan iska jeclaysan jiray mar walba inaan qoraalo warqadahan qurux badan ay u geeyo ama fariimo oo jacayl ay ku qoran yihiin warqadahaas oo midaba kala duwan iyo mar kolba waqti walbaan xilliga firaaqadahay marka qaar wax sameyn jiray xataa ama sawir ay leedahay ku sawiri jiray warqadaha markaasan waxay ku sawiri jiray markaasan u geyn jiray adoo si samaan markaa aan fahansanayo gaaraaban ugu sawiri jiray sawirkeeda saasan ugu diri jiray marka fariimaha warqadaha noon isticmaal jiray marka waxa sameyn jiray markan ubaxyada ka tago wadnayaasha waxaan jiri jiray 3 wadne oo saaran hal wadno oo dhameystiran mid yar ka sii saaran mid ka saaran warana dhexda uu ka dhex baxayo liid yar oo markaa adu ilmo ama dhiigo kalena xagga hoose uga daayo maxaa kugu weehnayo waraqo jacayl ah qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal mar waa way kugu dhigay
laakiin ifraax iyadu ma laha hibadiisa oo kale waxay kaga jawaabtaa un inay sidaasi oo kale u jeceshahay dareen bay ku sii dhalin jireen oo jacayl wakhtigani waxa la gaadhay in la qorsheeyo nolol aan la odorosi karin sida ay suurtagal u noqon doonto waxaana lagu jiray habeenna iyo maalmo farxad lahaa waxaan isku dayey bal inaan dee gabadhii helayo jacaylkaygii waan haystaahay bal inaan haddaba tacbo oon dee wixii aan ku kasban lahaa ama aan ku doonan lahaan dee aan doono waxa uu bilaabay inuu aad u shaqeeyo shaqadii baan bilaabay oo iguna sababna u ahayd inaan dee jacaylkaygiisaan helaysaan ugu guulaysan lahaa dee u dhammaystiran lahaa dabeedna shaqadii ugu horreysaan bilaabay waxaan ka shaqayn jiray farsamada gacanta gaar ahaan dawaarka shaqadaasaan bilaabay dawaarka oo qaybta dalaayadahan waaweyn ee la harsado shaqadaasaan ku bilaabay oo xilligaa shaqa aad u wanaagsan oo qaaliya ahayd ayaan ka bilaabay muddana waan shaqeeyey weliba xilligaa intii aan jacaylkayga anigoo wadaa markii aan helay shaqadii aan bilaabay ee farsamadan oo aan bartay aan ku shaqadii ku bilaabay waxay ii sahashay horta inaan moral badan helo markaa warwarkii xoogaa iga yaraado markaa aan ka fikiro balsaan wuxuu kasban lahaa iyo sidaan dee kharashaadkii iyo noloshii markaa dee waxaad markiiba horta aan ka guurayba waxaan ka guuray dhallinyarmadii waxaan guuray dee xaalad kale oo ah dee maskaxdii qalbiga waayeelnimo iyo dee mas-uuliyad ayaana guuray markaa mas-uuliyaddii kadib halkaa shaqadii waan iska bilaabay waan shaqeeyey aduu hiigsigaygu wuxuu ahaa inantii aan jacaylka bilownay sidii aan dee reerkoodii iyo ehelkoodii iyo dee waalidkii aan uga doonan lahaa wixii aan ku doonan lahaana waa doctor runaantii dee magaaladeena Hargeysa ama dee Somaliland dhammaan ahaan gebi ahaanba aad buu kharashku u badayay marba marka dambaysa dee xilliyadaa weliba xilligaa aad buu u badnaa kharashku maadaama anigoo kharashka uu badan yahay mar walba dee wixii aad haysay inaan kasii kordhiyo oon hiigsigu yahay bal wax ururin iyo sugeyn iyo dee inaad wixii kobciso ood wixii aad dee dad ula iman lahayd aan tacbayay inantu dhankeeda waxay isu diyaarisay inay noqoto marwada wiilka jacaylkiisu uu maasheeyey qalbigeeda maxamuud jawiga caashaqee uu galay waxa uu la wadaagay saaxiibbadii laakiin waa ay la yaabi jireen sida uu sheegayo maxamuud cabdi qiyaas dadka waxay u qaybsanaayeen dad wax la yaaba ninkaasi marka uu garanaysa ka sheekaynayo arrimaha inantaas iyo wax dee ma garanaysa arrinkiisa soo dhaweeya anagu maadaama saaxiib aad u dhow ahayn waqtiga oo dhan intaanu ka wada sheekaysanayno dadku waxyaabo kale isagu wuxuu iga sheekayn jiray halkay kolba xaalkoodu marayo waad garan kartaa dee dhalinyaradu asxaab oo sheekadii mar walba jacaylun inaad marka qaarkood yara karaysan soo ninkan mid wax kale horta kaaga sheekaynayn marka dee may ahayn aqoon darro xagga jacaylka laakiin waxay ahayd annagoo labadeedu isku xaalad dareemahayn inantaasi way sooyaal bay soo wada qaateen riyadii la hiigsanayay ee loo qalab qaatay ayaa markani lagu hungoobay maxamuud waxa uu maqlay war naxdin leh oo wadnihiisa gilgilay waxaa loo sheegay in duulaan uu ku soo fool leeyahay kalgacalkii hadh iyo habeenba uu ku howlanaa sidii uga midha dhalin lahaa horta dee annagoo sidii meel wanaagsan xaaladdu marayso waxaan ku yidhi dee xirkii dhulka dhexdooda joogno waxaan ku yidhi meel ka macaanba hawada sare hawada jacaylka ku dhex jirnaa ayay mar keliya ayay xaaladdu isbedeshay runtii markaa waxaad dareemi kartaa adigoo maanta diyaarad saarno marka lagu dhaha diyaaraddii way xumaatay hawada sarena aad marayso naxdinta aad dareemi karto iyo culayskii dhibaatada aad dareemi karto ayaad joogaa markaad ku jirtay ee joogiisu kaa bedelo ayaad dareemaysaa waxaa jirtay markaa maalmo ka mida baa waxaa dhacday anigoo meel jooga oo iska xaalkaygu iska okay yahay ay nin baa ila soo hadleen oo saaxiibnahay ninkii baa waxa uu sheegay arrin markaas ninkii wuxuu ii sheegay in inantii iyada ahayd ee ifraax ahayd ee xaaladdiin meesha wanaagsan maraysay inay hawl kale kusoo kordhay xaafaddii oo barnaamij kale la wado oo ma garanaysaa sheeko noocaas oo isagu markaa uu soo maqlay runtii markaa horta markiiba aniga mooralkaygii iyo farxaddaydii iyo joogaygii ayaa si aada isu bedelay waxaa kaaga daran intaasoo keliya bedel keliya ma ahee
waxaan garanayaa maalintii waan la hadlay iyadii baan weydiiyey waxaan ku uri ka waran xaaladda maxaa ka jira warka caynkaas in lagu soo doonayo oo xaafadii arrintaasi jirto niyo waan maqlay bay tiri laakiin waxaan aaminsanayo inuu jiraan u malaynayo maaha markaas waxaan dareemay markii baan isbedel waan si wanaagsan baan xasuustaa maalintii lay sheegay dhowr cisho xataa cunto cabitaan waxaasoo dhan maan cunin taasoo xaafadii xataa markii dambe xaafadii waalidkii ay dhibaato arkeen oo ilaa waaba yidhi war meed xanuunsanaysaa kula aba meed xanuunsanayo iska maadaama cuntadii baan cuni waayey marka horta halkaas ayay dee wixii isku bedeshay oo arrintii noqotay weji kale arrintii waan wadaagnay iyadana waan u sheegay markaan u sheegay waxaan ku arrintaa maxaa ka jira wallahi arrintaas waan maqlay laakiin wax jira oo sax uma malaynayo laakiin ilaa markii dambe ay dhabowday oo dee wixii ma garanaysaa iyadu way u qaadan lahayd laakiin markii dambe ay dhabowday oo dhab noqotay arrintii noqotay in reerkoodii laga soo doorto sidii dhaqanku ahaa dee sidii markii ay arrintu halkaa maraysana ay markii dambe iyadu ay anigiiba go-aanii soo goysay dee kolley waa markuu sida dee caadadaynoo ah ama dhaqankeennaba inta badan ah dee inanta waalidkeedun baa bixiya ama dee qofku markuu isagaa dee qof weyn oo tashana ama waalidkeeda bixiya may run ahaantii dhaqanka Soomaalidu markii hore iyo tadamba toona jacayl ma tixgeliyo inta badan inta mustaqbalkeeda iyo aayaheeda laga fikiraa qofkaasi jeebkiisa laga fikiraa yacni dee maanta marka inantii waalidkii ka soo doonay labada qof wuu miisaamaya kan iyo kan marka haddii inantii kolley dad badan baa soo doonan kara marka qofku wuu miisaamaya mar walba wuxuu eegaya inanta halkii u wanaagsan marka haddii dhalinyaro imika wax shaqo fiican haysan wax fiican haysan iyo kolley qof kale dee ma tartami karayaan haddii ifraax loo diyaariyey guuraan jacayl ku iman maxay ahayd talada ay ula tagtay maxamuud wakhtiga uu madaxiisu hoos u laalaaday sheekadu faamligu keenay bahayd kadibna waan ka tallaabsan kari waayey aduu waalidka xaggiisay ka timid aniguna waxaan markaa jeclaa maxamuudna waan u sheegay waxaan dee ka tallaabsan kari weynaayay noqoto aniga inan kala wada soconna ayaa u tagnay maxamuud kadibna waan u sheegay inay dee sheekadaasi jirto xagga faamligana ay ka timid kadibna maxamuud uu iskala yeelsaday waxaan u sheegay markii dambe inaanu jacayl jirin oo wixii horena ay ahaayeen matalaada markii go-aan bay soo gaadhay waxay ugu tiri maxamuudo waxaa jira arrin saas ah arrinkaasina waa dhab berri toolna hawshii dee fadhiiskeeda hawsheedii in la dhammeeyo ayaa la doonaya go-aankayguna waxa weeyaan soo gaadhay inaan dee ku yimaado markaa waaye ii kaale baan ku idhi markaana goobtaydii shaqada jooga ayay waxa ii timi iyada iyo inan kale oo saaxiib ahaayeen iyagoo wada socda rumaantii markaa dee anagu talo kale oo isku sii wada tashanay ama aan sii tashaday ama aan kasii wada tashanay may jirin markaas kediisun bay igu timi iyadoo xilligaa shantadeedii sidata ayay ii timi markii halkaa igu timi runtii arrintii dee kedis go-aankeeduna dee markaa uu yahay sidii dee meeshii jacaylkii aan ula baxsanayn ama meel kale aanu dee ugu guuri lahayn runtii anigana maan u diyaarsanayn wixii kediisun bay iga noqdeen meeshan ka shaqaynay goobtu bay igu timi si kediisay igu noqotay wixii fikriyo waqti kamaan fikirin oo maan dee aad ugamaan fikirin laakiin waxaan sameeyey inan baan saaxiibna ila joogay inankii baan in yar la yar tashaday marka aniga go-aan baa markii horta maskaxda ku soo dhacayay waxay soo dhacayay markaa inantan balan kaxeeyo oo aan geeyo islaaniha bararo xagga geedeeble degan magaalada tuulada geedeeble qorshahaasaa markii maskaxda soo galay laakiin ninkii saaxiibkaa marka la tashaday wuxuu igu qanciyey inuu inantan aan iska noqoto arrintana mar kale inta laga fikiro si wanaagsan looga tashado ana marka raygii kii kale waxaan ka qaatay inay malaha wanaagsantay inaan waqti fiican oon dekadiis ahayn anu ma garanaysa markaan wada sheekaysano oon dib maanta markaa u dhigano iyadana waxaabay ka taagantay xaaladdu halkii ugu dambeysay dabeedna sidii inantii
ayaan ku soo celiyey iyadoo cadhaysan bay markii halkaas iga soo noqotay. gabadha ay sheegayaan maxamuud iyo ifraax ee goobjoogga ka ahayd go'aan qaadashadii ugu dambaysay waxa weeye Hooda Maxamuud Garays. habeenada ka mid ah ayuu maxamuud dhibaato aad u badan baa adigu maray igu yidhi ifraax u yeedh, ifraax baan ballanay, ifraaxna waan u yeedhay, waan isu nimid dabeetana ifraax waxay tidhi reerkaygu arrinkaa uu gaadhay go'aanka hadduu qaatayna kama noqonayaan, hawshiina waa xilligaa, markaas intaanay hawshaasiba dhicin aynu guur masaafo ah samayno. runtii anna waan ku raaco dee xiisada arrinka ka ahaa dabeetana waxaan isdhi raacaba maxamuud sababo markaa jiray dartood iyo inuu de raggu dumarka hoggaanu yahay oo uu ka fiiro dheer yahay ama ka fikir badan yahay oo waxa markaa ku xeeran iyo xididnimada iyo sidee waalidka hadhow la isku noqon doono iyo uu wax badan eegay cabaar markuu soconay buu yidhi hawshaa kuma dhaqaaqayn. waa hagaag habeenkii waanu la qaadanay taasi ifraax waxay gelisay tuhun ah inaan ninkani u jeceshahay u jeclaan erebay tiro telefoonka iga soo taxay tuniyo waliyaana ima jeclaanin anu baa ku jeclaa deymana jeclaanin anu baa ku jeclaa abidna ima jeclaanin markaas dee nabadgelyo anigana saasaynu ku kala dhammaanay maadaama intaas soo sanadooda aan wada soconay maantana aad halka iga soo celisay runtii markaa anigana ay la xumaatay oo ila dee ma garanaysa markii dambe taladii go'aankii aan qaatay meena ka soo celiyana aan lahayn isla markaa ayadna gurigoodii ku laabatay hawshii markii hore ay diidanaydna sidii bay ku aqashay iyo ogolaanshay ninkii iyo wixii ay dee diidanayd anigana iyadoo iga soo qaaday markaa inaanan aslanba marka horeba qof wax jacayl u hayay aanan ahayn. talaacayn wareegtana la isku maacana talaacayn wareegtana la isku maacana caqli iyo hubsiina idhib loogaaya cidna eersan maaye markani ifraax waa la guursaday waxaanay noqotay afada nin calafku u dabray. waxaa dhacday adoo inuu dhacayn meherka inuu dhacay kadibna anigoo rajo dhigay inaan iska ogolaaday marka meherka saa ku dhacay. jaallaheedii maxamuud waxa jiif iyo joogba u diiday cishqigii lagaga hayaamay waxa laga jawaabi waayey telefoonno iyo fariimo uu diray. intaa kadib waxa dhacay inay telefoonka iga qaban weydo inaan meel walbaan ka garaaco iga qaban weydo inay igu dhigto inay mararka qaar qof kale igu dhiibto in ay ma garanaysaa maseejyadaanu diraan iga jawaabin deena xaaladii marka ay noqotay xaaladii marnaba aan caadi ahayn oo isbedel oo dee aan caadi ahayn u dhacay. habeenkii maalintii markaan saa ahaa kadib waxaan markaa warkii igu soo gaadhay in inantii iyada ahayd hawsheedii markaa ninkii la siiyey oo sheekadii dhamaatay. maxamuud wuu ila soo hadli jiray laakiin telefoonka kaman qaban jirin anigoo cadhaysanaa wadeen. waxay aamintay in been uu la jilayey iyadoo tala ay ku caddaatay laakiin uu doonayo in maruun ay rumaysato jacaylkii uu calafku ka adeegay ayaa waxa warqad uu ku qoray dhiig uu ka shubay gacantiisa. ma garaacayn inaan dee ama lahaas ama la sheekaysto base keliya waxaan u garaacayay in ereyga keliyaan dooni ahayd inaan ku qanciyo inaan jeclaan bes oo ereygii ay beensatay ay rumaysan weyday dee qadarkii ama dee sida go'aankii aan qaatay iyaduna u fahantay qalatay inuu dee aanan ma garanaysaa jeclayn inaan jeclay oo keliya inaan u rumeeyo oo keliya intaasaan doonayaan. markii dambe waxaa dhacday inaan sidii dee aan muddo waxay socotaba markii dambe aan aad u fikiraan sidii talow maxaad inantan bal horta ku soo jeedisaa. markaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a baan inaan saaxiibnimaan u tegey dabeedna ninka saaxiibkeen baan kulmiyo anigoo dhiig baan irbad baa soo jeediyey tirisheer deedna oo dhiig iska qaadis ayaan booy arkay deedna si war aan kaa qaado dhiiga dabeedna markaasaan ku uri waayahee
iga qaad dhiigii uga qaaday markaa laakiin ujeedadeedu dhiigeen isagu markaa xididka jirka irbad caadi tiriish uu saa uga qaaday tiriishkii markuu soo buuxiyey waxaan markaa anigu waa doonayay isagu xilligaa warka mu fahansanayn laakiin markii dambe ila fahmay waxaan doonayay inaan markaa aan warqadu ku qoro markaa kadib waxaan sameeyey warqadii baan soo qaatay inankii waan ka imi dhiigii baan ku qoray warqadii markaa hadii jeer markaa qoraalkii warqadii aad saa ugu qorto dhiigii inta badan qoraaladii inkastoo saa u kala hooshoosaysiiye haddana isku soo hordhawaadeen markaa akhrintii waxma inta badanee hore mooyaane akhrintii waxaasaa isku yar dadsamay u yaryaraaday dabeedna anigana ujeedadii hadafkayga waxay ahayd bal inaan mar keliya soo jeediyo ama aan u caddeeyo in aan inanta jecelahay wixii aan weliga uga sheekeynayna aanay been ahayn laakiin xilligaa wax rajaa ama waxaan ka damco aan ka lahaa haba yaraatay aanay jirin waxaana ay ahayd farriintii ugu dambaysay ee ugu sheegayo inuu jeclaa warqaddii lagu qoray dhiigga la hoorshay ayaa gaadhay Ifraax. waxaa dhacday inuu message ii soo dhacay kadib markaan akhriyey aan bannaanka u baxay waxaan arkay warqadda dhiig qoran bannaanka taalay hablo badan baa ila jooga asxaabtayda kadibna waan soo qaaday aduun xaqiiqsan weyn inay dhiig tahay markii dambe inan ka mid ah hablii baa ursatay oo aragtay marka aanu dareenkaygu isbedelay aadna runtii waan u ooyey markaasumaan xaqiiqsaday inuu jecel jiro Maxamuud wuxuu sameeyey inuu dhiig iska qaado oo jirkiisii jarjaro oo Ifraax ku xardho oo wadnayaal sawiro oo dhiig intuu shirishay iskaga qaado waraaqa ku soo qod dabeetana wiil Cabdiraxmaan loo oran jiray ayuu soo faray uu ku yiri hoodo telefoon ma haysana dhamaantay marka hoodo waxaad ku tiraahdaa furiyeen warqad baan halka dhigay saaxiibada uga saar Ifraax inta joojin bay samaysay waqti xaadirkaas waayo kuma calooladkeen guurkan oo kumanay faraxsanayn noloshii kale ay ku faraxsanaydna waa kan oo inankii sidii ayadu wax u rabtay waxba noogmay suurtagelin dabeetana wuxuu sameeyey in warqadda ay soo tilmaamo warqadii baa la ii sheegay geedka jacaylka la yiraahdaa meeshii la dhisay kala magarnay xafadi ma maro laakiin markaan iskuulka ku sii soconay si mar jirnay geedka markii la ii sheegay ayaan aniga hoodaa Ifraax iyo inan kale la joogtay u tagay markaasaan ku leeyahay inakeeno sidii wax wadada marayaan iska dhignay aniguna warqadii meesha waan ku ogaa walay tilmaamay dabeetana markaasaan ku dhaala meesha warqad baa ku jirto waa meelihii adigii Maxamed waraqaha jacaylka ay isu dhigi jirteen inta laga ma eegna Ifraax aad uga cagajiidayso shaki badan ka galay jacaylka Maxamed dhinacan xaafadana walwal kaga furan yahay oo aan qof guurkeedana ku faraxsan jacaylkeedina ku dhisnaynoon haynina ayay tiri hay aynu eegno qadii baa la soo qaaday dabeetana iyadii inantii kale oo iga hor yimaadeen indhiig ma habay yiraahdeen dabeetana anigu waxaan ku waa dhiig waan huba qof inoo geeyo minhin labiya mid saddex bayna inagu walaal saddexdeena weyn wada aragnay warqadan qof afraad inoo keena oo eega dabeetana inan baan tusnay inantii baa sanka saartay wardaa la yiraahdaa inantaas xaqiiqso tiri waa dhiig dabeetana Ifraax aad bay moraal jabtay hawshina way soo guda gashay already meherkii wuu dhacay si fudud oo markiiba oo wareejin ahna waa la sameeyay oo runtii Ifraax ninka doonayna markaa wuxuu ahaa denin aad u ladan ma sha Allah markaa hawshiisiba hore ayuu iska raacsaday guur ma hayna guur de sidii hay loo fulinayo lagu dhaqaaqay ayuu ha markaa adu hawshiisaas ay ku dhacday waa Ifraax waa la guursaday marka la hadana Ifraax anagoon faraxsanayn milxiisinteedii baan ka mid noqday intaasun kuma weekaan muujinta jacaylka la rumaysan waayey ee waxa uu la ballamay inantii goor habeena ayay wada joogsadeen meel bannaana waxa uu la soo baxay makiinad ama sikiin waxa uu ku sarsaray gacantiisa iyadoo oo hor taagan oo waxa uu ku leeyahay waxa tahay marwada nin kale laakiin waan ku jecelahay ee ogow waxquuli وانا كنت على وانا موجودة بيتري مرة حنقول وياه طب ولي حندوني أنا قاعد يا شعرك أنت إنك بدر مرة كدي واحد عينا يعني
waan u sheegay xilligaas waxaan ku uri walaal anigu marwaatay yacni inaynu kulanay iska daya inaynu is aragnay iyo inaynu waxaasoo dhimka muhiim aha laakiin jacaylkaygii maadaama rumaysta waxaan doonaya inaan kuu sii rumeeyo waxaa dhacday markaa inay aan soo qaatay makiinad goob baan ku balannay gurigooda markaa agtiisa ahayd makiinad baan soo qaatay xilli yar sakiin dabeedna markaasaan xilli yar fiida u yimi meel yar baanu istaagnay dabeedna iyadu markiiba kolley dee dhib bay dareemaysay oo dhibtii dhinacii jacaylkana dhibtiisii way dareemaysay waayahana dee way ku qasban tahay mid kaleo saddexaad baa jirtay oo dee anigana maanta dee wadda noo furan ma jirto dee intaasoo dhibaataa markii xalka lahaana xalkii anigaa dee ma garanaysaa go-aan qaldan qaatay dee wixii mushkiladahaba iyadan dhakada ka saaran markaa makeedi baan soo qaatay laakiin aniga waxaaso dhan waxaa iga muhiimsan inaan ku qanciyo inantayna jeclay bes inaan helo waxaa iga muhiimsan inay jacaylkayga ogaato bes dabeedna markaa makiinadaan soo qaaday waxaan sameeyey markaas aanu isugu soo hor istaagnay waxaan ku siday caddayntii jacaylka kadib caddayntii ayaan makiinada waan soo qaaday gacantaydan baan dee saa usoo shaarka uga qaaday dabeedna makiinadii gacanta ku sito iyadna halkan oo kale hortay taagatay ayaan aad saa ugu jarjaray ilaa xad baan saa ugu jarjaray dabeedna markaasay inanta wax samaysay oo oydiyey anugu runaantii wax yaroo damqashaa maan dareemin in yarna maan damqanin maan dareemin deedna aad dhiig badan baa yimi shamadeedii ba soo qaaday way igu duubtay dee ma dhiigga xididadan iyo bahashaasoo dhan baa wadago-ay shamad buu dhiig haynaya shamadii baan isku sii yar duuduubay runtaa markaan arkay oohinteedii meeshii dee ina dhacdaba ay ku sigatay dee dumarkuna way iska qalbi jilicsayin ayaa waxaan ku sameeyey inaan kuraa iska tag shamadii baan isku duuduubay anna waan soo dhaqaaqay markaan soo dhaqaaqay dee dhiiggii waa kan waxaasir bal haddaba bal dhiigga iska joojiyo iyadoo shaahmadoon dukaanka iibsado waan saaray marka shaagii madoobaa intii saaray waxaan sameeyey shalmadii baan ku yar xidhay wuu yahayn waaye markii dan waxaa dhacay inaan dee siiba haddaba dhakhtaro aad tagtid dhakhtarkii waan ma garanaysaa dee waaban ka xishoonayaaba maalintii dambe aduu way soo qaraacay telefoonka waan ka qabtay wuxuu ii sheegay inuu jacaylku ii xaqiijinayo jacaylku ii qaba inuu ii xaqiijinayo kadibna waan u baxay sakiimaduu gacanta ku sitay gacantiisuu ku jarjaray kadibna aad baan yacni uga murugooda waan ooyey shalmadaydii aan xidhnaa baan gacantayda ku duubay gacantiisa kaga duubay habeenkaasi maxamuud waxaa xanuunka jacaylka u wehelinayey damqashada xanuun kale ee jidhkiisa uu jarjaray dhaktar jaamac maxamed cali oo haysta xarun caafimaad ayaa habeenkaasi daweeyey dildillaacyada uu dhiiggu ka burqanayey isagoo aan fiirin karaynin in maxamuud toddobadii habeenada ka mid ah in uu ii yimid anigoo ah dhakhtarkii goobtan aynu hadda joogno ee aynu warfidiyeenkuna aynala joogo anagoo joogna ninkaas oo dhaawaca dhaawacii markii aan ku idhi dhaawacna siduu kuu gaadhay wuxuu markii hore iigu yidhi tuug baa i dishay kabacdi annaga waxaa nagu waajibada horta qof kasta oo dhaawac qaba in aanu marka hore dhiigbaxa uu ku socdo qofkaas iyo dhibta haysata in aanu ka badbaadino kabacdi markii aan dhiigbixii iyo arrintii joojiyey waxa aan weydiiyey inaan arrintani ahayn qof arrin lagugu dhuftay arrintan inta leeg dhibaatadeedu ee siday tahay wax ii sheeg maxamuudow ay dhib badani ku taallo oo dhaawiciisu halis yahay kabacdi haddana niyaddiisu ay qoslayso ayaa waxaa dhacday markii uu dhiigbixii joogsaday ayuu ii sheegay arrintani siday ku dhacday arrintii waxa ay noqotay in aan markii aan daraysinkii u sameeyo u dhayo gacanta ilaa harkaa inta u dhaxaysa waxaa ku yaalay ilaa iyo 33 nabar oo qaarkood isku darsameen arrintaasina ay ahayd arrin ka dhalatay jacayl aawadii
waxay dhibtaasi u gaadhay. kabacdi waan yaabay oo qofkan dhan ee qofkan bini'aadanka naftiisa u googoynaya arrinta waxa hayaa waa wax weyn. kabacdi aniga waxaa ila gudboon inaan horta naftan aan badbaadiyo. badbaadadeedii ilaahay baa lahaa, ilaahayna wuu nagu gacan qabtay. waxay qaadanaysay intaa uu dhaawacaas ka gaadhay ilaa 27 qodob ay gaadhaysay. anigoo u raali gelinaya dee ninkani dhibtan wuxuu u galay ayaa sidii aan u badbaadin lahaa aan idhi anigaa ku kafaalo qaadaya. haddii ilaahay idhaahdo maanta laga bilaabana aniga ayaa dawada iyo wax walba kuu qoraya. waxaan markaa uu dawo ay socotay daweynteedii iyo daraysinkeedii arrintaa jacaylka ku timid oo ah in uu markii aan weydiiyey uu yidhi gabadh aan jeclaa oo markaa aan aada isku jeclayn ayaa laga guursaday. kabacdi arrintii markay sidaa tahay ayaan arrintan ku dhaqaaqay jacayl aawadii. arrintii markaa dee dadka qaarkood markay maqlaan ambase ay dee arrintaa dib u eegaan wax khataray ku noqonaysa. laakiin maxamuud anigoo aqaano aadna u aqaanayay markaan dabagalay arrintii arrin dhab ah ayay noqotay. maxamuud ilaahay uu nagu guuleeyey muddo bil iyo 10 cisho ayaanu dhayey dawooyinkii siinayey. ilaahay uu nagu beeyey. maxamuud waxa uu go'aansaday dhalandhoolka socdaal uu kaga hayaamayo magaaladii uu ku waayey gabadhii jacaylka ay wada abqaaleen. xagga ilaahay kama laakiin waxa ku aragtiisu ka dhameysay madameynana kulmi baa laga yaabaa. markaa waxaan markaa go'aansaday inaan tago markaa waddanka maadaama dee jacaylkayga meeshaan ku waayay bal inaan ka tago meel kale oo halkaygu dhawaa markaa inaan u tahriibo. runtii markaa waxaan go'aansaday inaan horta waddanka oon tahriib sax ama wax go'aan degdeg ah waxay qorsheynaysa laakiin inaan tahriibo. markii sidii baan ku tahriibay adoo ilaa 7 cisho meelaha kadib waan baxay. waxaan tegey Wajaalan tegey xagga Ethiopia doonay markaa inaan u baxo. taado dee way dhalinyaro meesha joogtay war xaggaas waa adkaato in ciidamo marto. markii liilma marto waxaan sida dabarkiisa ku noqonay Djibouti baan tegey. Djibouti markii aan tegeyna markaan wax yar joogay haddana waxaan sida war harkiisa u baa horta igu darnayd inaan ku noqdo oo meeshaas ma igu darnayd. marka waxaan sameeyay inaan haddana fikiro tahriib kale oo marka xagga Yemen iyo xaggaasaba niman iga sheekeeyeen. aniguna tusmaysto qayrkay halkuu tegi tabaabo shayrtee. aniguna tusmaysto qayrkay halkuu tegi tabaabo shayrtee. ay taageera lahayo arrintaydan kala tahay waxaana ugu dambayn uu gaadhay dalka Sacuudi Arabiya. wallaahi dee nolol horta adag baa Sacuudiga ka bilaabantay markii ugu horeysay xuduudka saa u soo galay. runtii waxyaabihii la yaabka lahaa ee jiray waxa ahayd in waqtiyada qaar dee ma numberkeedii iyo waxeedii iyo informationkeedii iyo waxeedii oo dhanba waan ka tegey. laakiin waxa dhacday waxaan la soo hadli jiray dad kale asxaabteeda kuwaasan ka wareysan jiray xaalkeeda ma fiican tahay ma wanaagsan tahay kuwa qoladaas in aad la soo hadli jiray. marmar baa jirtay markaan xilli aan odhan jiray ama telefoon igu yargeeya markaan saa xaaladeeda aan u yaabo marmar ay dhici jirtay inaan salaan layga gaarsiiyo. laakiin aduu dee waxaan baa halkaasuun dee waxaan baa aduu laakiin inaan is ilowsiiyo xaaladii oon aada isku ilowsiiyo. midda kale aad waxaan sameyn jiray markii dambe waxaan markaa arkay xaaladeedu aad u adagtay. quraankan aad u akhri jiray quraankan aad u qayb jiray dibna markii dambe mashquul badan ma iska jiray. halkaasaan wax badan aan iskaga daway jacaylkii waxoogaa silmalaha dee muddo kaga yara waxoogaa kolbaa nasiima dareemi jiro anigoo dee aad iskaga mashquulnay. waxa ugu badan aan aadka iska ilaalin jiray ama ugu dhibaatada badnaan waxay ahayd heesaha. markan haddaan hees maqlo runtii maan adkaysan kari jirin. iska daa Soomaaliga Carabigaasoo waxaan ku markaa waxoogaa ka aqaanay waan oogi jiray markaan dhageysto.
isla sacuudiga ayuu ku guursaday gabadh kale maadaama ifraax ay galbatay waxaan sameeyey inaan markaa inaan guursado oon xaas kalan guursaday anigoo markaa dee islebel saad u iloodo oon markaa ka tanaasuliyadda maadaama iyadna ay dee reer noqotay ana markaa reer baan noqday gabadh baan guursaday halkii aan nolol kale ka bilaabay markii dambe ciyaal baa dhexday halkii baan noloshaa kale ka bilaabay hawshii baan halkaa ka galay waxoogaa silowsiin badan baa jirtay ifraax iyadoo uu qaban nin kale haddana kama guureen kalgacalka ayuu qabtay maxamuud mana jirin meel ay kala xidhiidho hase ahaatee waxay ku noolayduun xusuus waxa la sameeyey heeso iyo suugaan lagu cabbiray cishqiga la maaxdumiyey mustafe axmed doolar waxa uu sameeyey hees midhaheeda iyo laxankeedaba uu leeyahay kadibna uu isagu qaaday waxaana uu curiyey markii qisada ay ka wada sheekaysteen nin ay saaxiib ahaayeen maxamuud oo markaasi Hargeysa ku sugnaa habeenkaas markii qisadaas laga sheekeeyey ay dhamaatay runtii waxaan qabtay dhinacii xaafadeeda ama gurigeyga anigoo shucuurteedu bedelan tahay oo jawigii kale ka bedelayahay markii aan gurigii tegey waxaan damcay inaan qisada bal wax ka qoro anoo markaas jeclaa inaan wax qorqoro oo hada jaraale inaan wax hal abuurnimo wax sameeyo markaas waxaan damcay inaan wax ka qoro qisadaas markii aan qisadaas ku damcay wax ka qoro habeenkaas midhahan sameeyey dareenkan ku sameeyay run ahaantii maxamedow waxa dareen aniga igu cusub waxaan dareemayay inaan si dhaqso wax u sameynayo iyadoo ay igu adag tahay marka kale inaan si caadi wax u sameeyo waxaan kaloo dareemayay inaan sideedii hore si aan ahayn aan hawsha u dhameyn karo habeenkaas hees baan qoray heestaas markaan qoray habeenkii fanku waa heestii ugu horeysay aan qaaday ay noqotay heestaasi fankuna wuu igu cusbaa markaa ninkii musiishiga ama la xiriiray markaan heestaas aan ninkii musiishiga la xiriiray subxaan waagaasa waan wixii wiila ballamay waan u tegey runtii heestaas anoon qofna kala tashan anoon garanayn ninkii qisada ku dhacday anoon garanayn inanta qisada ku dhacday ayaan heestaas intaan sameeyey aan la xameeyey ayaan duubay intaan heestaan aan sameynayey ama la xameynayey ama duubayey ama aan tumayey runtii waxaan ku jiray jawi kale jawi jacayl jawi dareen iyadoo intaasi jirta markaan heestaa habeenkaa soo dhameeyey runtii habeenkii dhan aan dhegeysanayay waxaan u dhegeysanayay habeenkaas oo dhan si anigu waxaan wax aan igu dhacino kala yihiin runtii inankii baan u keenay heestii dhegeysan kooda wallaahi horta qof kastan heestaan dhegeysiyaa isagoo qisada hore u arag ama qisada aan garanayn dareen ama jawi kale wax arkaysa isagoo ku gamaya soo dhegeysanayo si dhow ugu dhegeysanayo adigu qisada heestaas runtii habeenkaas midhaha aan sameeyey way socotay way baxday nin kamida ninka imanka saaxiibkii ugu dhow ahaa markaas oo maxamed cabdiqaasa dhaktar ahaa ayaa heestii qaaday oo heestii markuu uu sameeyey oo midhahii iyo laxankii wixiiba dhameeyey aniga ayaa heestii qaaday inantii baan u geeyey waxaan iga soo codsaday inaan qaado maxamuud laftiisa oo markaas sacuudiga joogay niyo ilaahay baan ku dhaariyay isagoo heestaa inantii u geey waayo cid kale u geynaysaa ma jirto aniga ayaa inantii gurigeeda hayey oo u geeyey oo habeenkaa waxaan xasuustaa dee kulley inkastoo dee sheeko ay tahay qiso dhab ah oo u baahan in wixii jirayba dee sideeda loo sheego waxaan xasuustaa inay markii inantu ay heestii dhegeysatay inay aad ooyday oo muddo badan ay ilmeynaysay la rogay naftiiso qalbiga wax weyn u geystay allah dhimbishii jacaylka ku furay dhammaan waxiisa ruuxii ku dhibtooda abido dartaa dhimanaya adiga ruuxii ku dhibtooda abido dartaa dhimanaya adiga dhaqso loo daweeyaa dibyari loo urursamaada ruuxii ku dhibtooda abido dartaa dhimanaya adiga ruuxii ku dhibtooda abido dartaa
dhimanaya adiga intaa dhaqsa loo daweeyaa dhibyari loo urusamaada. maxamuud oo isna sacuudiga jooga ayaa heestaasi loo geeyey. heestii maalintii aan dhegaystay runtii dee waxay igu noqotay qiiro badan. dhowr saacadood baan ooyey. baalkayre maxaa la yidhahdaa kliniskaasa yaallay bogoskii ilmadiisan isaga beynayay ayaan ku dhameeyey. 7 sano kadib waxa uu helay war rajada soo nooleeyay oo sheegayay in Ifraax la dalaaqay oo ay kala tageen ninkii qabay. isaguna wakhtigaasi waxa uu ahaa kali joog ay kala socdeen haweenaydii sacuudiga uu ku guursaday. markaas uu ii keenay war fiican oo kale oo ah in gabadhii maanta madax bannaantay ninkii ay kala tageen Hargeysa ay joogto arrinkeedu dee uu saayahay. ka nambarkeedii barnaamijkeedii bartii baan dib iskaga soo xidhan. marka horna dee jacaylku muu dhammaan laakiin anu mar walba waxaan isku dayay inaan hawshiisa iyo baddeeda iyo wixii aan ka fogaado. dab sanadii hore aan xiriir iyo raadin sanadii dambe waa iska gooyay oo man xiriirin jiray laakiin qalbigayga iyo maskaxdeeda waxaa jiray dee sawiradeeda aan haysto ama caynkaasa ayaa jiray. waxaa mid kale oo iyadna wax jirtay halkan markii aan ka tegay wax jirtay garan aan kusii sawirtay sawirkeeda halkan igu sawirnaa. dabeedna garankaas waan xidhan jiray mar intii aan halkan joogo dhan waan xidhan jiray xataa habeenkii ugu seexan jiray. markii dambe taariibayna waxaan iyaanu kaa lumine meel baan kusii xaafida laakiin sawiro iyo barnaamijyo kale aan iskaga noolaan jiray. wallaahi markaa kadib dee jacaylkii horta waa nin dib u soo galayba oo intii halkaa maalintii aan ka bilaabay waa dib weynagan badii haddana badii casho ku soo noqday. markaas waan soo xidhnay nambarkeeda waa nin helay waa soo xidhnay dee qadarrada ilaahayna way iska badan yihiin. markaa waxaa dhacday inantii dib aan soo xidhiidhino. kii waan kala tagnay qadarkii baana dhacay. maxamuud namaan garanay meelan kala xidhiidho. waxaa abuurmay ididiilo cusub waxaana la go'aansaday in markan guntiga loo geejisto sidii laysu calfan lahaa. markaas waan soo xidhnay nambarkeeda waa nin helay waa soo xidhnay dee qadarrada ilaahayna way iska badan yihiin. markaa waxaa dhacday inantii dib aan soo xidhiidhino. markaa ninaan saaxiib nahay oo isaguna markaa Hargeysa joogay ayaan la soo hadlay ninkii baan ku noo inanta waxaan doonayaa isagoo markaa xagga Sacuudiga u soo noqonay weliba taariikh soo noqonay inaan doonayaa soo kaxayso. inankii markaa wuxuu yiri waa okay waa soo kaxaynayaa. dabeedna bal qadarka ilaahay may suurto gelin inay wanaag soo kaxeeyo. markaa xilligaa oo yar xanuunsanaysay anna markaa intan aan ku yaro lacag u soo diray baan ku soo bax inankiina waa taa soo bixi weydii. markaas haddana mushkilad kale ayaa halkaa iga bilaabantay ilaan quusba ka gaadhaan war maad laatan ilaahayba kuuma qorin. marar badan oo waxaa jirta ka istakfurasada nimala dimi baabad gashay xilligaa. dabeedna waxaa dhacday inaan dee waxoogaa maaragtay aan halkaas haddana hawl kale murugo kale aan dib u galay. xilligaas dee waxaan ku markay waqtigiina soo bixi weyday inankiina keligii soo baxay aad anna waan uga xumaaday. marka waxaan sameeyey hees markaa fanaankeena Mustafa oo heestii horena isagu abwaankeedii ahaa jacaylkiis ku keeneen ahaa inaan haddana hees anigu aan sameeyey hees sameeyey marka anigoo dee cadhaysan baan sameeyey. markaa heestii markaan sameeyey ayaanu inankii heestuna dee markaa waxay ahayd heestee iska foorjaa qalbiga igama hayn laakiin dee cadho ayay iga keentay. heestii markaa xilligaa waxay noqotay inaan kudha inankii Mustafa markuu heestii qaaday u gee haddaba. ninka Mustafana uma geynayo maadaama anigu tii hore u geeyey wax isku soo celinaysay tan wax kala kaxaynaysa anigu ma geynayo. anigana ninka waan kala tagnay kadibna rajadeydii baa soo noolaatay. Ifraax oo ogayd dhibaatada tahriibka ee uu mutay Maxamuud waxay diiday inay iskuursadaan iyagoo kala jooga Sacuudiga iyo Hargeysa waxaanay go'aansatay inay dhadhamiso dhibka markeeda. kadibna way la soo xidhiidhay wuxuu yidhi reerkiina ku weydiisto. kadibna anigaa diiday waxaan doonayaa markaa inaan dareemo dhibaataduu maray ee tahriibta ahay. Ifraax walaal reerkii uu ka burburay ilaahay qadartiisa waxaanay kala tageen sawjkii markaa guursaday. maalmaha ka mid ah dabeetana aniga Ifraax saaran Ifraax muddo in jeel laga soo daayay ay tiri waxaan ku go'aansaday si aan inaan ku yimaado ama aad timaado. dabeetana waxaan kaalay bujiri gabadhiisii noloshii halkaas iyaduna dee marka horeba dee waxay dad maqaalfay wanaag isku qabay jacaylkooda waa hal qalbiyo
marka adigu da jacaylkiiba labadoodiiba hafiyey oo jacaylkii gurigan rogayun baa kii kalena qayb ka ahaa baynu odhan karnaa dee inkastoo qadarka ilaahay meesha ku jiro oo dhismaha iyo burburka labaduba yihiin waxaa ilaahay xaggiisa suurtagalka ah dabeetana inankii iyo inantii wuxuu usoo diray nin dadka kaxeeya ah markaa wuxuu yidhi inankaasaa kusoo kaxayn jidkiisa loo mariyo waxaas isagaa kaasoo lacag buu usoo diray markaa ifraax hawshaasi hakad baa yar galay oo mayna suurtagelin maxamuud ifraax tuhunkii berigii ay qaaday markay tiri aan israacna na kaxayn waayey oo kalaaba maxamuud galay markaa wuxuu yidhi dee waay nolosheedunba dee saas uu loo waday oo inay nolosheeda aan burburiyo oo haddana jacayl kale iyo dam kale iyo dhib kale aan galo deetana ifraax waxay qaadatay go-aanka ah inay maxamuud ka daba tagto ifraax waxaan ka mid ahaa dadkii aanba bixiyey sacuudiga ayay isugu tegeen waxaana salka loo dhigay jacaylkii la hadimeeyey oo markani guulaystay horta waa batan sacuudigii timi markay timi waxa dhacday inaan dee faamiligii ka doonto aan la hadlo reerkii oon sidaa dabeedna aan laysku kaayo siiyo halkaa dabeedna ay dhibaatadii jacaylku ay ku dhammaato gadaadu tilmaantay waaya dhibtiisoo gabagabowda gadaadu tilmaantay waaya dhibtiisoo gabagabowda gugeenni waa kaa samaade aroos aynoo gangaamay waxa la wada dhistay qoys kalgacal hadda iyagoo leh wiil iyo gabadh ayay ku wada nool yihiin Hargeysa waxaan ahayd nolosheeda markay ugu farxadda badnayd sidii baan ku noqonay family waxaan noo dhalatay inantayda nasiibada